أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهام. هلو ومحي xigmaddu waa dhigidda shay walba halka ama meesha uu ku habboon yahay. haddii aad si kale u iraahdana xigmaddu waa hadal yar oo lagu sheego wax faa'iido ugu jirta bini'aadamka adduunkiisa ama aakhiradiisa. xigmaddana ilaahay wuxuu siiyaa oo keliya qofka uu la rabo. qof walba xigmad ma helo. haddaba halkan waxaan maanta kugu soo gudbinayaa xigmado ku saabsan waqtiga iyo guusha oo noloshaada wax badan ka beddelaya. haddaba channelka subscribe saar iyo like. mahadsanid walaad. xigmadda koowaad ayaa waxay leedahay sidaan: ha noqon qof suga inta uu markabku soo xirmaayo ee noqo mid u dabaasha dhinaciisa. fashilku ceeb maahan, balse inaad dadaalka joojiso ayaa ceeb ah. waana badan waa la helaa, laakiin ku dhaqankeeda ayaa yar. isku day inaad samayso hawl xidigaha ku gaarsiinaysa, hana iloobin inay lugahaagu dhulka joogaan. laba arrimood ayaa qofka shakhsiyaddiisa muujisa: sabirka marka uusan waxba haysan iyo sida uu u dhaqmo marka uu wax haysto. mar kasta qofku uma baahna waano, wuxuu u baahan yahay qof dhagaysta. ha dooran qof qurux badan, laakiin dooro qof dunida kuu qurxin kara. goortii aad meel sare joogto, saaxiibadaada way garanayaan qofka aad tahay. goortii aad soo dhacdana, adiga ayaa garanaya saaxiibadaada dadka ay ahaayeen. dadka wanaagsan waa sida shumaca oo kale. waxa ay naftooda u gubaan sida ay dadka kale iftiin u siiyaan. dhoolacadayntu waa habka keliya ee aad ku wajihi karto caqabad walba. si aad u burburiso cabsi walba una qariso xanuun walba, mar walba dhoolacaday. cusbada iyo sonkorta waa isku midab, haddana waa kala dhadhan. laakiin waxaad kala garan kartaa markaad dhadhamiso. noloshu ma ahan mid adag marka aad ku xihan tahay alle, laakiin way adag tahay marka aad ka tagto adeecidda alle, sida salaadaha, soonka iyo sakada. noqo qof markay dadku arkaan ay dhahaan adduunka weli khayr kama dhammaan. toosnow mar walba. waxaa laga yaabaa daqiiqadaas inay noqoto midda noloshaada ugu dambaysay. akhri wax badan si aad u aragto wax badan. qofkaan rabin inuu wax akhriyo waxba ma dhaamo midkaan awoodin inuu wax akhriyo. qof kasta qalad ayuu sameeyaa nolosha, laakiin taasi macnaheedu ma ahan inay naftooda u ciqaabaan. mararka qaar dad wanaagsan ayaa sameeya doorasho xun. micnaheedu ma ahan inay dad xun yihiin, micnaheedu waa inay bini'aadan yihiin. waxaa jira 5 kelmadood oo muhiim u ah noloshaada: caqiidada, jacaylka, daacidnimada, aaminaadda iyo xushmadda. haddii ay noloshaada ka maqan yihiin kelmadahan, wax badan ayaa kaa maqan. u isticmaal codkaaga naxariis, dhagahaagana wax khayr leh inay maqlaan, gacmahaagana sadaqo, maskaxdaadana runta, qalbigaagana jacayl, jidhkaaga oo dhanna cibaado iyo alla ka cabsi. xabsiga ugu weyn ee ay dadku ku noolaadaan waa cabsida iyo ka walwalidda waxa dadka kale ka aaminsan yihiin. haddii aad iska hadasho wax badan, waxaad ku celcelinaysaa wixii aad horay u taqaanay oo keliya. laakiin haddii aad dhegaysato, waxaad baranaysaa wax cusub. dadka qaarkii waxay garanayaan magacaaga oo keliya, ma oga qisadaada. waxay arkaan dhoolacadayntaada oo keliya, ma oga xanuunkaaga. waxay la yaabaan aamusnaantaada, ma oga maskaxdaada waxa ka guuxaya. waxay akhrin karaan qoraal aad soo qortay, laakiin ma oga waqtiga kaaga lumay. guushu waxay leedahay macaan u qaas ah. keliya waxaad dhadhamin kartaa marka aad soo dhadhamiso macaanka fashilka. guushu ma ahan dhammaadka nolosha, fashilkana ma ahan dilaaga nolosha. geesinimadu waa inaad joogtayso waxa aad rabto. wax guul ah ma xaqiijin kartid ilaa aad ka jeclaanayso waxa aad qabanayso. saad u noqoto qof guulaysta, waxaa kugu waajiba inaad jeclaato guusha in ka badan inta aad ka cabanayso fashilka. guushu waa caado, mar walbana waxay u timaadaa kuwa ku mashquulsan ayada sida ay u soo xaqiijin lahaayeen. xitaa haddii uu wejigaagu dhulka ku dhaco, ha ka caajisin inaad horay u socoto. guushu waa joogtayn. ilbiriqsiga keliya ee aad guulaysanayso waxay ku ilowsiinaysaa dhibka iyo rafaadka aad soo martay. marna ma khasaaraysid intaad ku jirto iskuday. dariiqa guusha iyo horumarka ma ahan mid adag, mana ahan mid fudud. haddaan garanno sida aan u fashilanno, waxaan garanaynaa sida aan u guulaysanno.